sida quruxda badan leh ee howlkan loo sameeyay oo maxaan ku dhahaayay ay tahay mid si gooniya dadka qalbigiisa qofkii inuu damqanaya qiiro gelinaysa fanaaniinta halkan ka heestay kuwii hore u noolaaye codadkoogii iyo waxay abuureen aynu caawa dhageysanayno oo cali sugulle uu ka mid yahay maxamed saleebaan iyo codkiisii macaanaa oo dadka aan dhiman naftu way tagi laakiin maxamed saleebaan iyo cali sugulle iyo dadka la midihii taariikhday ku jiraan oo ma dhimanayaan waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan doonayaa inaan u mahadnaqo oo isagu si gooniya aniga igu casuumay inaan imaado oo xafladan ka qayb galo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maalin abeen la dhaafi karo ma aha marka inkastoo diyaaraddu ay dheereyd oo meelo badan ay la soo fadhiisatay oo qaarkood ay iga habsaamay haddana waan ka soo gaaray marka aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqayaa inuu fursadda ay siiyay iyo madaxda kale ee dawladda iyo dadka kale ee jamhuuriyadda muuqeega aad uga muuqdo inta dabadeed June 26 Somaliland maxay u tahay ayaan su'aasha isweydiino ayaaniga ila tahay fala dheer gelin maayo laakiin dhowr qodob laba inaynu isag dhigno aynu kala saarno inaga haddaynu nahay reer Somaliland June 26 maxay inoo tahay taasi xisaab bay u baahan tahay gooniya talabaadna waxa weeye June 26 maxay inooga taraysaa adduunyada kale Soomaaliya iyo adduunyada kale maxay inooga taraysaa faa'iidadeedu maxay tahay labada amuurood baan doonayaa inaan in yar taabto toba horeysa waxa weeye inaga waxay inoo tahay June 26 what does it mean for us inaga maxay inoo tahay anu waxaan qabaa inay tahay marka qarannimo laga hadlayo runta ugu da'weyn ee Somaliland ay leedahay inay tahay 26 June runta ugu da'weyn ee Somaliland marka taa inaynu isla fahamno oo aynu garanno oo aynu maamuusteeda iyo sharafkeeda meel gooniya dhigno waa laga maarmaan talabaad wadajirka wadanka amba wadanku waqti adag ha ku jiro waqti wanaagsan ha ku jiro laakiin isku haynta wadanka jiridda wadanku waa 26 June wixii taariikhda kale ee dhaqanka iyo afka iyo diinta iyo yes laakiin hadii laga hadlayo qarannimo waxa weeye wadajirka wadanka waxay u tahay saldhigga ugu weyn 26 June tasaddexaad waxa af Ingiriisiga lagu yiraahdo civic solidarity dad meelo badan kala degan qofka Seylac degan iyo qofka Ceelaayo amba Ceerigaaba degan isma soo gaarayaan intooda badani laakiin waa inuu ruux xoog is ogaado inay dad wada yihiin isla oo wada jira civic solidarity 26 June taas ayay keenaysaa anigu magaalada la yiraahdo Laascaanood baan dooda ka galay doodaha aan ka galayna markii dambe waxaanu iskugu nimid 26 June inay tahay maalin aan cidna dafiri karin inay tahay maalin la wada leeyahay inay tahay halka wadanka taariikhdiisa cusub ee gobonnimadii ay ka bilaabantay civic solidarity dambaysa inaga ay noo tahay wax badan oo kala lagu dari karaa laakiin waqtiga ay ugu gaaban waxa weeye inay xalaalayso legitimacy inay xalaalayso wax la yiraahdo jamhuuriyadda Somaliland inay xalaalayso legitimacy ay siiso marka أنا حسيا ولالك الله ونحرسته دكتور علي خليف كلايد وضلها شهوتك إنك يو الدنيا ذا كله خاصة الصومالية أو ده ترتن أذا إنك ده حيو محي فائدة ككيني كرتا أرنتا ترتن كا أينو كجون أنا وحن قوا 26 جون إن يتهاي مدفع وجوين الصوماليلاند أي صهر لقي كرتو صوماليا واي ما حكينا يتاس وحكينا يا سيدي هورانو الشيء there were original moment
وحكوا الرئي ما يجرين ما كان لقاها الله يقرن ما يجرين 26 جون original moment وعرض كيوجوه الرئي ده ياد فير كرت هذا إنه كدوتها جاجي سنو ياد فير كرتاس درارتي ولا الكي لورد يسي وعلي سجولة هستا عندك يسنني درارتي ولا الكي لورد يسي إن هرتي ده شيء سو ما صار عن أيوك لا يعلي سجولة إن هرتي ده شيء سو ما صار original moment طلبات waxay si wanaagsan u qeexaysaa oo cadaynaysaa clarity ay uga bixinaysaa mabda'a qarannimadii Somaliland oo soo noqotay ayay cadaynaysaa clarity ay ka dhigaysaa 26 June tasaddexaad dadka Soomaaliyeed ee reer Somaliland aan ahayn ileen ummaddu way ballaaran tahay oo geeska way ku fidsan tahay adduunyo kale degan tahay waxay siinaysaa inay fahmaan waxa af Ingiriisiga lagu yiraahdo affirmation inay tahay wax dhab ah Somaliland inay tahay wax dhab ah oo Soomaalida kale ee geeska iyo adduunyada kale degani ay markaa qalbigooda soo jiidan karto heesta qofka dhageystay Soomaaliyeed dhigiisu uu dhaqaaqaya meesha doono ha deganaado soo adamaad garan taana way keenaysaa ugu dambeyn waxay keenaysaa markaynu la hadlayno dibadda iyo reer Soomaaliya haddii ay timaadaba anoo rajeynaya inay timaadaba haddii ay timaado in maxkamad adduunyo la isa soo taago oo halkaana Somaliland ay dood keenayso halkana Soomaaliya ay dood keenayso anigu waxaan qabaa dadkii dhageysta Somaliland oo qadiyadeedii sidaa u soo dhistay halbowlana ay tahay 26 June ee maskaxdoodu ay furan tahay dadka dhageysanaya neutralka yaa aan cidna raacsanayn inaynu qancin karno si degdeg ah waliba aanu qancin karno ayaan ugu qabaa taana halkaan kaga haro waxaan ugu dambaysiinayaa maxaa ka dhaxayn kara 18 May iyo 26 June waa in su'aasha la isweydiiyo anu in badan baan taa ka dooday ka hadlay 18th May 18 May waa maalin aynu u baahannahay inaynu si gooniya وحسنه أينو حسنه وديدك يددالكي أحمد وكان مره وين لحسده أم بهنا ولا هذا أم بوقت كلام وين لحسد قور والبلحس هي أنت كلاي سجل لمذا تقال كا أدق إلا جو قحوتيوبي إلا جو داوعمي إلا جو دنتي إلا جو بربوري مقال هذا برعو وقالك يقبل أبنتي تقال كي جو ريي مقالوين كي جو وين البربورية برعو جو ريس ayay 18th May marxaati ka dhacay wixii nagu dhacay bay marxaati ka tahay iyo sidaynu ugu jawaabnay wixii nagu dhacay marka maalin ciyaara 18th May ma intina doodayda maqashayna ha u qaadanina mar walba inaan leeyahay 18th May hala tuuro marna ma oran caawna waxaan ku celinayaa 18th May inay tahay maalin qiimo weyn laakiin wala la yaal 18th May wala dhalay ismay keenin wala dhalay oo hadda dhageysato dadkii dagaalka adag ku jiray ee Axmed oo kale uu kamid yahay waxay ku doodayeen ilaa caawana aan ku celcelinayna waxaan la soo noqonay wixii aan lahayn naga lumay baan la soo noqonay Soomaad garan marka wala dhalay June 26 waa aabihii iyo hooyadii 18th May waan taana isla garan laakiin su'aashu marka waxay noqonaysaa waayahay labada sidee la iskugu keenaa aniga doodaydu waxa weeye waa inaynu keenno farsamo ah in labada la isku qaado mar qura la isku qaado ya waa inaynu keenno farsamadeedii waana la hayaa farsamadaas sidii la iskugu qaadi lahaa in yar baan idinka dandansiin farsamada sida la iskugu qaaday anu waxaan ku talinayaa one citizen of Somaliland one person waxaan ku talinayaa sida la iskugu qaadayo in 18th May ay noqoto taariikhda cusub ee bilaabmaysa 18th May ay noqoto maalin la xusayo loo dabaaldegayo fantasiyo loo dhigayo fasax la qaadanayo oo ku saabsan
dagaalka la soo galay iyo dhiigga ku daatay sida aan loo iloobay oo marka laga dhigo for example maalintii Martyrs Day maalintii waxaan ku rahay dhimashadu ay ku badatay dadkii dagaalka ku jiray Martyrs Day halyeeyadii ku dhintay lagu xusay oo ay noqoto maalin dadka veterans ba Ingiriiska la yiraahdo dagaalka soo galay dagaal badan baa jiray laakiin kani waa ka inaga xageena ugu weyn buu noqonayaa sidii loo xusi lahaa iyo fasax iyo fantasiye iyo celebrations loo galo 18th May inay sidaa noqoto 26 June ay noqoto National Day maalintii qaranka Somaliland uu dhashay ay noqoto waa ka caawa marxaatigii halka odayaashu ay ka hadlayeen maalintay dhalatay National Day kulkaan waxaan ku talinayaa inaynu ka shaqeyno madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirada iyo maxaan ku rahay dadka ku jira labada gole ee wadanka qawaaniintiisa laga dejiyo inaynu ka shaqeyno dastuurka in la geliyo June 26 inay tahay National Day of Somaliland inay noqoto aynaanu ku talnay marka moran dambe iyo sida la kala yiraahaa iyo waxaasi ay naga hadho waxayna marka dhigaysaa risaalad cusub oo muuqata oo dhan aan loo dhaafi karin ay noqonaysaa qofka jooga laascaanood amba ceelaayo laasqore jooga iyo qofka loo yaacada jooga inta u dhaxaysa waan dhameynayaa waxay noqonayaan marka dad degdeg isku afkarta ay noqonayaan SNL NUF iyo USB halka waxa ka dhacay shaqo adag ba halka la soo qabtay dadkii shaqada soo dhisay saddexda xisbi soo dhisay ee dhaliyay gobonnimadii Somaliland ka hoostay ku jiraan caawa laakiin ruuxoogu inay dhageysanayaan marka waynu marxaati furana waxay soo qabteen iyo siday u soo dadaaleen inaanay cidla ku dhicin oo inaanay loobin waxaan ku soo gabagabeynayaa عالنيوهو 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 عوان عيد دول كيغا